تشقيو وحشقها سوق قلم عون جرنا حولينا كنا ولا هبنا ده حوله أكتر هي أيضا مدحت الجمهورية فدرالك الصومالية ay walaa xoog ka muujiyeen abaaraha daran ee saameynta ku yeeshay muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xoolaha ay dhaqanayeen ee ka jirta dalka ayaa meelaha ay abaarta daran ka jirta waxa kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya taasoo gaartay in dadka xoolahoodii ka dhamaadaan dadka oo markoodii hore ahaa xoolo dhaqato ayaa haatan door bideen inay magaalooyinka gabaad ka dhigtaan maadaama xoolahoodii ay galaafatay abaarta baahsan ee ka jirta gobolada dalka halkani waa kaam lagu magacaabo kaam joolaal oo ku yaala koonfurta duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud qiyaasna degmada u jira 6 kiiloomitir waxa ku soo barakacay dad ka soo hayaamay deegaano fogfog oo jooyin kala duwan uga beegan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud qaar kamid ah dadka kaamka ku sugan oo ay ku jiraan dad aad u tabaalaysan isuguna jira caruur waayeel hooyooyin ayaa inooga waramay xaaladda ay haatan wajahayaan xoolihii waana dhamaadeen wax dartoodna waa joogan dambi ilaahay hadii laga galo ilaahay ayaa garabka ku gala baahina waa la qabaa oo waa la soo barakacay meeshaan ku soo beerina iyadana hadda ka hor kaalma kama aanan helin hadee waxaan ka rabnaa muslimka hadii alla ku run yahay iyo wixii gargaar la iyo hay'adaha waxaan ka rabnaa inay noo gargaaraan biyana male baadna male meesha waana joognaa ka halkaas jooga 300 waxa soo raaca adinku waad aragteen inta waaba oo ku dhisan oo naf ka raadi إنكوا واضح ركتين مداوات صدح مرتين أنت عزنا بنفلا إلهي يا جوكت وضمنا شدهين داغنا عنكو هيسا محمد نوفار حليبة دأوينا واجرة ولا كنا ولا نهاي تشقيو وحشقها سوق قلم عون جرنا حولينا كنا ولا هبنا ده حوله أكتر هي كودن باب ما waxa weeye dadka meesha jooga horta biyo meel loo dooran maahan biyo kale oo haysta ma jiraan aqsow biyo waa saas aqsow cunna ma haysto ashaartu say noqotay waa ogtiin adinka fulxin waxa weeye waxa codsanayna anaga kaamkaan dad badan isugu yimid kaam joolaal la yiraahdo maqle waxa weeye waxaan codsanaynaa hay'adaha samafalka iyo dawladda inay indhadheer noo yeeshaan ayna arkaan inaan been sheegaynay inaan been sheegin kala arkaan waxaan codsanaynaa saaka inaan dadka masaakiinta inta la qamaajiyo laga tegin saasan 10 goor soo marna anagu inta hadda loo yimaad ee la yiraahdo waa yahay in laga tago hadda waxaan inaan naloo imaanaba karto sanayna hay'adaha samafalka iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas baad iyo biyo iyo nabad iyo waxbarasho inta ka dhaxayda in la soo gaaraan umada Ilaahay oo meeshaas toogan oo afar taqbilo ka timid oo kaab doolaal isugu timid dad adigu ilaadinkiisa tabaalaysan oo meel kasta ka yimid oo xoolihii hadalad ma ay qaar soo dhaafay qaarna waxay milgaleeyeen aan la arag iskugu yimid meeshu biyo male baad male adigu ilaadinkiisa waa meel lagu rafaadsan yahay waxaan dawladda galmudug ka codsanaynaa oo dawladda ilaadinkiisa in noo dhalato hadalku roon yahay xasan hadalan sheekh maxamuud ka codsanaynaa oo Soomaaliya inay naga soo gaaraan marka baahidaasaan nahayda biyo male baad male waa meel hadii la hayaan ku dantaraysanaa joognaa dadka dad xoolihii qaar soo dhaafay qaarna wax dhaafay aysan wax dhaamin ay waxay ka cunaan waayeen meesha iskugu yimid markii hadii la ku roonyo qorraxdu dhacdana wax la cunaa hadii la may beledka loo tago wala kala carara wax hadda ka hor nacaawiyay ma jiraan kaamka joolaal ayaan ku suganahay dadkan oo dad danaysan oo wax walba isku jiro oo meel ka timid oo meesha isku bahaystay oo isku cadaystaan haynay meesha isku imaanay aad iyo aad dhaqaale daro u daran baa qof si ku nooshahay iyagoo kaamka joogay ay wadaagaan aan ugu noolnahay qaasatan waxaan aniga hadda la hadlayo ciyaalku iga xanuunsan yihiin وما هيستو تقدر وما هيستو waxaan ugu awood aan ku geysto noloshooda dib ugu shitan ma awoodo
saxaaraha waa jiif la yidhaah uma awood in astaal ku jiifsado kaamka dadka degan oo dad iska reemigii u badnaayeen dadka reemigiga xoolood ka soo dhamaadeen xoolana haysan hantina haysan mas'uuliyiin haysan guriyana haysan oo buushashka sameer sacalada degananahay oo ku nool markaan imaano wax biyo oo hadda markaan joogno inta aan joogno dhibaatada ugu hayda waxay tahay inaan biyo cunto midna aan ku haysan iyo suuli toona codsiga maxaa ugu dinayaa qofti oo walaalaha oo awoodo ee wax saamaxi karto oo walaalaha meesha isugu imaaday oo ku nool waxay ku caawin karto gargaar inay ku caawiso bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu yahay Axmed Nuuriye Joolaal waxaan beesha caalamka u sheegayaa idaqbayaashii gargaar bayaasha iyo hay'adaha maxalliga waxaan u sheegayaa dawladda galmudug iyo dawladda federaalka kaamkan Joolaal biyo male baad kala male waxbarasho male baalka la yiraahdo suuliyaal male hadda godkii baraagto kale waa bilownay wax aan ku dhameystirno iyo xisaabahan ku xalina ma haysano dadka dad afarta birqable ka kala yimid meesha isku yimid meesha dhulka lagu gargaar ahaan loo dajiyay dadku gargaar u baahan yihiin beesha caalamka inay soo gaarto u baahan yihiin biyo u baahan yihiin baad u baahan yihiin waxbarasho u baahan yihiin suuliyaal u baahan yihiin waan ka codsanayaa beesha caalamka waa ka codsanaya si degdeg inay ugu soo gaarto bulshada ku nool kaam Joolaal ayaa madaxda galmudug iyo tan federaalka ka codsaday in loo soo gurmado